boqorka hadalkiisiina waan taageerayaa boqor cismaan maxamuud buur madow boqorka guud ee Afrika doorasho oo waqtigeedii doorasho boqor buur madow hadalkiisa waa taageeraynaa waa soo dhaweynaynaa madaxweyne u dulqaadan mayno inaad madax dhaqameedka dalka ka saartid u dulqaadan mayno arig iyo abaartu naga heshay inaad haddana beeyadii naga joojisid waxaa ogtihiin oo dhacaya in la weerarayo madax dhaqameedkeennii iyo waxgaradkeennii gobolada iyo degmooyinka qaar ka mid ah waxaa saaka ka dhacay mudaharaad ay ku dhawaaqeen xisbiyada mucaaradka taasoo ay ku dalbanayaan in doorashada xilligeedii lagu qabto taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee degmadaasi Ceelaf Weyn ayaa saaka soo bandhigay go'aankii xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqeen ahaa in doorashada xilligeedii ay ku qabato xukuumadda haatan talada haysta ee Soomaaliland ugu horeyn waxaa halkaasi saaka shacabka degmadaasi Ceelaf Weyn gaar ahaan kuwa taageersan xisbiyadaasi mucaaradka halkaasi kala hadlay mas'uuliyiinta heer degmo ee xisbigaasi wadani mas'uuliyiin kale oo xisbigaasi taageersan kuwaasoo dhammaantoodba hadaladooda ku biyo shubanayeen in doorashada xilligeedu uu ku qabto madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi halkan arkaysaan la isku soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bishii 8 2022 waxa halkan la isku soo baxay mudaharaadkii laga ku saabsanaa doorashada la qaban waayay ee waqtigeedii la dhaafilayo la garab taageerayo la gacan bixinayo cad ayaa dadka kale iyaga oo ka xun oo doonaya doorasho ayay isugu soo baxeen maanta halkan degmada Ceelaf Weyn bartankeeda waxay doonayaan doorasho waxaan leenahay doorashada hal la qabto waqtigeeda hal la qabtaan leenahay dadka nabadgelyada ha ilaaliyo madaxweynaha Soomaaliland ee ku fadhiya kursiga maanta cadaajinta ku haya inaan waqtigeedii doorashadu dhaafto muddada yarna ka hadhay tirsan maalmaha waxaan leenahay hal la qabto doorashada yaani lagu warwareegin xisbiya la furayaa iyo urur la furayaa iyo waxa ayaan lagu wareegin waxa weeye waxa la isku hayaa waa doorashaanu doonaynaa doorashada hal la qabto si degdeg ah oo waqtigeedii ayay maalin laguma dari karo shacabku doorasho doonaya isbedel buu doonayaa madaxweynaha waxaan leenahay hadda ka dhamaatay oo aad madaxweyne waliba ma ka dhamaato doorasho diyaar garooba doorasho shacabku Soomaaliland in badan ku soo jirtay waxa weeyaan way sadon iyo dhowrtirsatay Soomaaliland inta madaxweynaha soo qabtay doorasho kasta doorasho bedelaysay looma baana madaxweyne waska xoog baan ku haysanayaa maxamed siyaab laga diitaa adiguna ku tallaabsan dadkana warin ummadda shacabkaagana u tud doorasho qaban lana doorasho oo waqtigeedii doorasho nalagal waa ku diyaar baan doorasho u nahay aadna u diyaar gal haddaad geli karaynin iska sii daawo muslimka shacabkaaga u tuliyo dadkaaga Soomaaliland dhammaan waxaan salaamayaa shacabka reer Ceelaf Weyn ee aan u kala hadhin maanta inay muujiyaan shucuurtooda haddii la oran jiray Ceelaf Weyn kala qoqob baa ka jira iyo qabyaalad war miyaa ka jirtaa aku tashan Muuse hadaba ha ku tashan Ceelaf Weyn waxaan anigu la hadlayaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin adiga xalaysa Soomaaliland ayaa hadashay waxa tidhi cirra keenay argagixiso Soomaaliland war wax ka soconaya lagu hadlaa nin weyn baa tahay ha karaama seegin nin weyn baa tahay cimrigaagii waad soo qaadatay cid ka dhagaysan mayso beentan iyo boqoraadadatan ee aad wadato cid ka dhagaysanaysa ma jirto dalkuna maanta halku marayo adiga madaxweynaha qaranka ee dumiyay baa la weydiinaya wixii gaala iyo idinka la weydiinaya idinka la ku xisaabtamaya dalku doorasho u baahay maxay doonaynaa noqoryayna sidana siiri baan sidana qoryooma sidano waxaan ku leenahay Muuse doorashaanu rabnaa isbedel baanu doonaynaa waxana laaya harraad waxana laaya abaaro waxana laaya ummaddu waxa haysta fakhri baa haysta Soomaaliland fakhri baa haysta waxaanu doonaynaa kii ka saar lahaa fakhriga ee biyahooda halka intay ka baxaan maraya Itoobiya u xiri lahaa ee uga samayn lahaa beeraha
ee uga samayn lahaa biyo xidheennada u qabta biyaha ee ummaddu ka manaafacaadsan lahayd isbeddel buu dadku doonayaa muuse waxaan leeyahay waxaad tolatay kaba kaa badan baad tolatay laakiin kuwa ku leeg baanu kuu tolanaa isbahaysiga haddaannu nahay waxaannu leenahay doorashaannu doonaynaa isbeddel baannu doonaynaa ummaddu inay sidaa ka sii wanaagsantaan doonaynaa dalka waa la wada leeyahay haddaad maqli jirtay oo ay kaa dhaadhiciyeen kooxaa kulmiye ay kaa dhaadhiciyeen ceelafe way kala xidhan tahay war miyaa kala xidhan tahay war miyaa laysayaa war miyaa laysilayaa isbeddel baa la doonaya reer ceelafe waxay doonayaan isbeddel bay doonayaan isbeddel wanaagsan baanu doonaynaa waxaannu ku leenahay dalka u tudh oo qaranka u tudh oo ummadda u tudh oo ilaahay ka xishood maa bini'aadanka waxasleeco kaa qaban maayaane waxa lagugu soo gelayaa madaxtooyada 13 Noofembar doorashadu hadday dhici weydo cidna madaxweyne uma tihid mararkaani waa madaxtooyada dalkaa waxba la yeelin waynoo madaxtooyada tahay 11kii bishii 8aad August oo ah maalintii uu cayimay xisbiga axsaabta mucaaradka isbahaysigu mudaharaadkooda inay ku muujiyaan si salmiya ayaannu u qabannay maanta degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag waxaannu leenahay xukuumadda oo sharcigii ka tallaabsatay oo ku dhaqaaqday xabad nool inay la dhacdo dadkii iyo inay gawaari jiidhsiiso oo aan la ognahay gobollada qaar ka mida inay taa ku isticmaalayso aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa hay-adaha xuquuqul insaanka kuwa maxalligaah kuwa caalamigaah intaba waxaannu u sheegaynaa inay gaboodfal iyo digtaatoornimo iyo kelitalisnimo ay ku tallaabsatay xukuumadda maanta jirta ee xisbiga kulmiye oo uu hoggaaminayo taasoo uu hoggaaminayo madaxweyne biixi iyo inta la halmaasha waxaannu leenahay xabbad iyo qori kuma haysan kartaan dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel buu u baahan yahay kan waxaa ku dhan shacabkii degmada Ceelafweyn oo isku dhan oo isku duuban oo ka soo horjeeda xukunka kelitalisnimada ah ee Muuse Biixi waxaanu leenahay madaxweyne dhagaha noo fur oo meesha doorasho qabo oo dadkaaga doorasho u qabo waxaasoo dhan waa kula hadlayaan haddaad soo jirtay Ceelafweyn oo kala qaybsantahay ma kala qaybsanin soo ma wada soconno soo doorasho kuma soconno madaxweyne u dulqaadan mayno inaad madax dhaqameedka dalka ka saartid u dulqaadan mayno arig iyo abaartu naga heshay inaad haddana beeyadii naga joojisid u dulqaadan mayno inaad dhulkii nagala wareegtid madaxweyne doorashaannu rabnaa waannu isku dhannahay ma kala qaybsanin haddaad sahayd waa kala qaybsan yihiin ma kala qaybsanin doorashaannu doonaynaa muujinno innaga oo tusaynaa inaan dalkan lagu haysan karin caburin iyo cagajuglayn iyo ciidamo laysu adeegsado iyo inaan lagu haysan karin dalkan ayaynu tusaynaa waxaynu tusaynaa inaan dadka wax ay xaqa u leeyihiin dastuuriga ah inaan cid allaale cid hortaagi kartaa jirin waxaan idiin sheegay waxaa ogtihiin oo dhacaya in ganacsatadii la weerarayo waxaa ogtihiin oo dhacaya in la weerarayo madax dhaqameedkeennii iyo waxgaradkeennii aqoonyahankeennii waxay gaadhay heer madaxa loo duubto inanka aqoonyahane fikirkiisa ka hadla waxaan idiin sheegayaa dalku isbeddel buu u baahan yahay isbeddelkiina gacantaannu ku haynaa haddaa inoo dhigaystaan shaaric alxamdaha inoo soo dhiga sanduuqa waxaannu saaka bulshada degmada Ceelafweyn waxaannu kala qayb qaadannay bannaanbixii ahaa salmiga ee bilaa dhibaatada ahaa ee sida ugu quruxda badan u dhacay aad iyo aad baan ugu hambalyeelaynaa bulshada reer Ceelafweyn oo isku duuban iyadoo aanu weliba ilaalinaynay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee degmada hore uga dhacay oo aanu aad iyo aad u ilaalinaynay haddana dadku shucuurtooda way qarin kari waayeen si boqolkiiba boqolo bay u mudaharaadeen waxay ku taageersayeen labada xusbi qaran maanta gobollada oo dhan dalka ka dhacay mudaharaad ka dhacay ayay kala qayb qaadanayeen haddaannu nahay xildhibaanada degmada Ceelafweyn gaar ahaan waxa ka soo baxay xusbiga UCID
aad iyo aad baan u hambalyeeyaa xusbiga iyo madaxdiisaba. waxaan u mahad celinayaa shacabka degmada Ceelaf Weyn oo maanta mudaharaad salmiya dhigay. maanta ay tahay maalin khamiisa oo bisha 12 tahay oo astaysnayd maanta in mudaharaadkii loo asteeyay. maanta waxay u mudaharaadeen si nabadgelyo mudaharaad nabadgelyo degmada ka dhacay si wanaagsan oo qorshaysan oo turaalaysan baa degmada Ceelaf Weyn looga mudaharaaday. guud ahaan dalkana waxaanu la soconaa in mudaharaadkii ka socdo. waxaanu la soconaa maanta oo warbaahintu soo tabinaysaa in tacadiyo badan ka dhacayaan gobolada iyo degmooyinka qaar ee mudaharaadku ka dhacay. waxa ma qarsoona war xunina dugsi ma yaalo waanu dareemaynaa waanuna kula soconaa. waxaanu taageersanahay mar labaad iyo mar saddexaadba oo aan ku celcelinayaa in doorashadii la qabto waqtigeedii. waxaanu taageersanahay haddaanu reer Ceelaf Weyn nahay in ay cududooda ku muujiyaan xusbiyada mucaaradku. waxaanu leenahay inta xayndaabka lagu soo celinaya dawladda waa inuu mudaharaad ku socdaa. muuse biixi mid baan leeyahay madaxweynaha mid baan leeyahay muuse biixi xisbiyada mucaaradkana mid baan leeyahay reer Ceelaf Weynna qodob baan leeyahay muuse biixi mid baan leeyahay maalintii lagu wareejiyay hadday ururada lagu furo maad yeesheen waxaanad yeesheen adigu ragga ha ku day iyo xisbiyada ku day maalintii lagu wareejiyay maad yeesheen waxa muuse taasaan leeyahay xisbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay waa loo haynayaa soo baxa inta uu doorashada ka ogolaanayo waynu haynaynaa reer Ceelaf Weynna mid baan leeyahay sidaa maanta ay isugu dhex jirtaan gamcaha soo haysataan aynan u kala qaybsanayn mar walba isugu dhex jira boqorka hadalkiisiina waan taageerayaa boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow boqorka guud ee Afrika. waxaweyaan muusow meelaan laga rabin indhaala lama sii raaco la iskuma rido haddaan ruuxu ku arkayn. Soomaaliland waad aragtaa waa wada mucaarad, Soomaaliland waad aragtaa waa wada isbedel doon. marka waxaan leeyahay muusow islaax iyo wanaag ka shaqay. khamiista lagu baaqay maanta ku beegna marka waxaan rabnaa in doorashada waqtigeedii lagu qabto oo aan dheed lagu darin saacad iyo sikin mid ahaan inaan lagu darin ma rabnaa. muuse waxaan u baaqayaa inuu doorashada waqtigeedii qabto dalkana uu khalkhalka iyo dhibaatooyinka uu ku wado ka daayo. waxaan doonaynaa doorasho iyo isbedel baan doonaynaa doorashada waxay keenay isbedel baan keenay oo waxaan rabnaa in doorasho halkeedii loogu talagalay ay dhacdo.